khudbada maanta waxaan uga hadlaynay xaaladda khatarta ay leedahay bini aadanka wax allaala wuxuu maqlo in uu faafiyo. hadday ahaan lahayd waxaas la faafinaayo wax been ah oo sal iyo raad aanan lahayn, ama wax lala jeedo dadka in lagu cabsi geliyo oo noloshoodii cabsi lagu beero, loo diido waxyaabaha ay ku hormari lahaayeen, isla markaana la qaldo ra'yi caamkoodii, la qaldo caqiidadoodii, habdhaqankoodii. waxaasoo idinla wax hadda bilaabanaya ma ahan. allah subxaanahu wa tacaala asagoo yaqaano dabeecadda bini aadanka, aayadaha aan ku soo qaadanay khudbada waxaa ka mid ah alla inuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu an tusiibuu qowman bijahaala. haddii wax hadal uun laguu sheego ama khabar uu ku soo gaaro, ha ku fududaanin inaad khabarkaasi rumaysato ama aad faafiso ilaa aad ka ogaato saxnimadkeedii ama khaladnimadkeedii. waxaan la noolnahay zamankan fidnooyin aad u fara badan. fidnooyinka aan la noolnahay waxaa ka mid ah in hadal weliba qofka uu ku hadaaqo ama damac weliba uu doonayo inuu bulshada dhagahooda gaarsiiyo inay u sahlan tahay daqiiqad uun ama wax ka yar, ayadoo laga faa'iidaysanayo horumarka tiknolojiyada. cinwaankani waxaan ugu soo beegnay maanta oo khabarkan aan u soo qaadannay waxyaabaha dhacayo ugu dambeeyo dhagahayna soo gaarayo oo lagu soo bandhigay social mediaha, oo lagu soo bandhigay bulshada dhexdooda, sun lagu soo dhex tuuray, oo ah dadkii maanta in la argagax geliyey, la cabsi geliyey. waxyaabo haddii badankoodii la dabagalo ay naqanayso wax dana gaara laga lahaa, ujeedkooduna uu ahaa bulshada in la marna habaabiyo. waxyaabaha hore noo soo maray weligood dhici jiray ayay ka mid tahay in been la faafiyo. ambiyada calayhim assalaamaa lagu sameeyey, been baa laga faafiyey, waa la cabsigeliyey. bal ummaddii dacwada ay ugu yeerayeen yaa inta suurad kale loo bandhigo yaa looga faa'iidaysanaya in dariiqa xaqa lagu leexiyo. kuwaasi weli way nool yihiin, way joogaan. mar weliba waxay la soo baxaan miciyo cusub, dad bayna kaalmaystaan oo waxay leeyihiin ahdaaf iyo ujeedooyin oo kala dhaxeeyo xaqa in ay la dagaalamaan. dagaalankaasna allah subxaana wa tacaala wuu noo sheegay in marka laga digtoonaado qof walba xadarkiisa uu qabo, zaman weliba la joogo, xilli weliba la taagan yahay. allahna wuu noo sheegay, wuxuu yidhi walaa tutiicuu amra almusrifiin, ha raacina kuwa mar weliba u taagan xadgudub inay sameeyaan. oo maxaa waaye dantoodu aladiina yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun, kuwa arlada fasahaadinayo, doonayo inay xasisho, aanan doonaynin, mar weliba rabo dadku inay khalqal iyo cabsi ay ku jiraan. waalmurjifuuna fi lmadiina, kuwaasi marka way badan yihiin. annaga haddaan nahay soomaaliya, haddaan nahay dalkeena maalmahan dambe social mediaha waxa ugu badanoo gilgilay ayaa ka mid tahay nolosha caadiga ah. way dhici jirtay nacam in kufsi lagu sameeyo gabar muxsanada oo dhoorsoon, way dhici jirtay qof inuu qof kale dil u geysto, qof inuu qof kale tuhmo, way dhici jirtay. laakiin maanta waxaa warka badbadiyey, aad u fududeeyey social mediaha. waad ogtihiin maalmo dhabeed waxaana loo keenay wax la leeyahay qoorgooye, nin dheeroo la leeyahay mindiyo wata ummaddu qoorta ka jara, ilaa ciyaalkeena xitaa ay awoodi waayaan qol iska faaruqa inuu galo uu ka soo baxsado kitaabka yaraa uu doonaya ama buugar inuu akhristo. argagax ku xun maa jirto, waa la soo waday. waxaa laisku dayey in dugsiyadii qur'aanka isbaaro loo dhigto oo macallimiintii la ixtiraamayey
oo karaamada loo haayay ummadda khayrka baraysay walladina yumassikuuna bilkitaabi wa aqaamuu salaa inna laa nudiicu ajra almuslixiin alla uu yidhi in la suurad xumeeyo macallin baa ardaygiisa kufsaday subxaana allah waxaas ma saxa sax ma aha waa waxa la doonayo dadka in lagu marin habaabiyo yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaa'ihim wallahu yutimmu nuurahu saldanada loo quuri waayo awoowihiyaa imaanaya macallin uu leeyahay hooyadiiyaa imaanayso macallinay dhehaysaa cunugii oo macallin uu leeyahay darajadaasa loo quuri waayo khayru nnaasi man yamshi calaa wajhi almucallimuun dad baa marka maanta arrinkaasi rabo dugsiyada in la xiraa loo socdaa wax kale looma socdo hadday run tahay maxaa loo soo bandhigi waaya iyadoo saxa wax ka jira ma jiraan waa akaadiib la faafinaayo gabdhihii iskuulaadka dhiganaya ee jaamicaadka yaa waxaa la rabaa in guryaha lagu celiyo qanawaadka loo diyaariyey diishashka loo diyaariyey internetkan iska socda biyaha camal u socdo aan la xisaabinayna waxaa la rabaa inay maanta dhan sawirkeeda soo dhigto guri ku xirnaato oo baraanka ay muujiso waxa loo yaqaano taasaa loo socdaa waxbarashada iskuulaadka la diidan yahay jaamicaadka la diidan yahay oo waxaa la leeyahay waa la isdafayaa dadka shaki lagu kala abuuray shakiya lagu kala abuuray waxaa la rabaa meesha in laga saaro yaqiinta allah subxaanahu wa tacaala qadarta alle qofka mu'minka uu la nool yahay in laga saara la rabaa haddii arrinkaasu la baafinayo sida loo sheegayo sax ay tahay maba dhacayso mana filayo saas inay tahaye waa la soo bandhigala waana la ogaan lahaa aawe weli ma aragteen wax saxa ma la arkay weli la soo bandhigay bal kuwa la soo bandhigaya ahdaaf gaara laga leeyahay oo waxaa la rabaa in ra'yul caamka si loo bandhigo hadday sax tahay hadday been tahay ilaaha looga baqdo baqashadaas allah subxaana wa tacaala ayaa lagu badbaadayaa qof walibana berita qiyaamo waa la weydiinayaa wuxuu ku hadlaayo carabkan allah subxaana wa tacaala waa nimco oo nagu nimceeyey asagaasaa waddo looga dhigtaa haddii la doonayo alle in lagu xirnaado xaggiisii hadduu asaga kaa leexdo oo kaa qalocsamane naar buu kuu sababaa nebiga sal allahu calayh wasalam hatuu xadiidka ahaa wahal yakubu nnaas fi nnaari calaa wujuuhihim aw calaa manaakhirihim ilaa xasaa'idu alsinatihim dadku naarta wax kale laguma tuuro laguma geliyo sanqaraarkoodii ama wejiyadoodii ilaa waxay ku kasbadeen carabyadoodii kuwa maanta raba inay diinka alle kula dagaalamaan carabkoodii ilaah kaga baqdeen kuwa maanta rabo in ay macallimiinta iyo dadka wanaagsan iyo ducaadda iyo qaylada ummadda inay suurad xumeeyaan ama gabdhaha xijaaban waad ogtihiin xilli waxaana soo maray gabadha xijaaban la leeyahay hoos bay wax ku wadataa xijaabkeedoo laga cararaayo oo in la xumeeyo la rabo oo la leeyahay wax waliboo tuhamo iyo khiyaano ah lagu tuuraayo aaway waa laga soo kabsaday alxamdulilah maanta waxaan maraynaa in baatil lagu xijaabto lagu socdo in laga khajalayo dadka qaar oo xijaabkaba si fiican loo qaatay allah sii hanuuniinta farsanne marka ikhwaani fillah waxaa loo baahan yahay carabkaas inaan ilaalino cuquubada ugu weyn qofka beenta faafinaayo oo alla aan ka baqanaynin nebiga sal allahu calayhi wasalam uu noo soo wariyey waxay tahay xadiidkii nebiga habeenkii la dheelminayay rayada uu ka sheekaynaya wuxuu u yimid nin meel iska fadhiyo nin baa u imaanayo markuu u yimaado bir uu wuxuu wataa kalluub oo kulul markaasuu wuxuu samaynayaa inta daankiisa geliyo halkaasuu ku jiidaa ilaa gadaaluu geynayaa haddana sanqarku gelinayaa ilaa qoortiisuu geynayaa ishuu ka soo bilaabaa ilaa qoortuu geynayaa markaasuu nabi sal slam wuxuu yidhi subxaana allah maa haada war waa maxay sidan ninkan maxaa sidan lagu gelayaa maxaa sidan lagu jeexjeexayaa markaasaa waxaa loo jawaabay ninkan aad arkaysid waa ninka inta been ku hadlo beentana sii faafiyo beentaas la sii qaado qof kale uu sii qaado qof kale uu sii qaado ilaa ay ka gaarto meel uusan ka soo celin karin beentiisaasaa u sababtay war carabkaaga ilaali farahaaga ilaali dhegahaaga ilaali qoraalkaaga ilaali safxadaada ilaali waxaan alla raali ka ahayna ku faafinin kelmad kastoo aad ku hadasho waa lagu daba taagan yahay waa lagu qorayaa waa lagu wacdiyey waa lagu waaniyey ina asamca waalbasara waalfu'aad aragga maqalka qalbiga intaba waa lagu weydiinayaa falyaqul khayra walyasmut qofka mu'minka hadday laga maarmaan tahay
wax khayra ku hadla hadal ba haduu rabo ama ha qoro ama ha faafiyo hadii kale ha iska aamuso كفى بالمرء إثما قف وحد دنبي غفلا أن يحدث بكل ما سمع إنه كشاكيه ضدك أشرحه فهمسيه كأفتهنيه لغو ماذا يستو وحوال بقو مغلق أصلا وأبيلين مرنبا مسوابين وين دعضي ولي ما أركتي بين أدي أشيكتو سو وريقتي قفك لأقوكين وتبر بين دوامد أنا فافنا يقول شيك أدي ولي ما أركت هذه هي الدنيا ما لنت قيامة وقدر انتهى ما لنت قيامة والله وقدر انتهى يا عيالك يركع أنا مركا يرين شيكوين بين لو شيك جري إلا هذا كان مشاكل وآخر لو شيك جري بين إعلان دانا واتي الدنيا كو أركت آخرنا ويكو هرسنتا إخواني في الله الله أنك بغانا وقدم بين مركا maxaa waajib anaga saaran waxyaabaha la sheegay cabsi gelinta waxba la duubtay waxba la afduubay qof baa la qabtay jirkiisa xibin muhiim ah laga la baxay sidaas la yeelay waa la qashay waa la yeelay waa la xirtay waa la afduubtay waxa soo idil waxa lagu soo afjari karaa inaan Allah subhanahu wa ta'ala aan ka baqano diinkiisa aan qabsano aan isku xirnaano wacyigelinta aan badino beedka Allah subhanahu wa ta'ala aan amirno Allah haddaan ku xirnaano waan badbaadayna qof waliba mas'uuliyada saaran xawaadistan dhacayso cabsigelintan hadaladan beenta la faafinayo maalinba wajiga ku imaanayaan qofka muuminkana waxa loo baahan yahay xaalad kasto la taagan yahay mowqif uu leeyahay mowqifkaasi in uu dul istaago oo fiiriyo dhaho midaan waxa kaaga aadan ehelkiisi ilmihiisi nafsadiisi inuu gacanta ku dhigo kadibna diriskiisa u gudbo kadibna intii markaa oo wacyi gelin karo u sheegi karo halkaas ayaan maanta ugu tala galnay in aan waqfada khudbada kaga hadalno qatarta ay leedahay wax walibo inaad faafiso oo aadan u aabayeelin waxaan marunba mise waa been ma cabsigelina la jeedaa mashadad wax laga boobi rabaa waa lagu weydiinayaa waxaan ku soo gabagabeynayaa khudbada waad u jeedaan masjidkii qaybtii koowaad hawshu way bilaabatay meel fiican bay noo maraysaa bilow fiican dad badan waxay la baxeen bedelkoodii qeyr qaba Allah siiyo sadaqada Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay qofka markuu wax bixiyo inuu bedelkeeda siinaayo midan uma jirto waa sadaqa jaariyo waaye nafsadaada ay Allah subhanahu wa ta'ala yaad ka iibinaysaa oo waxaad ugu bedelanaysaa janno naxariis kurba ku haysa caafimaad u baahneed baarinimo oo aad heli weysay waalidkaaga wali ma kugu dhacday adigoo fayow caafimaad qabo oo aad isweydiisay aad tiray uu ku dhalay oo ku soo barbaariyay abaalkiisa ma gudi kartid maxaad ugu guddaa waa meeshaad ugu gudi leeyahay Allahumma maanta hadaad u bixisa xitaa 1 kiilo oo shiminda ما خساريش صدقة جارية وهشي بر وهشي بدل نواد هليسا إن شاء الله إخواني مركا كفا إيدي سنو صلوا على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى الصحابة والتابعين وعنا وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ بلادنا اللهم احفظ أمننا واحرس بلادنا واكفنا شر الأشرار وكيد الفجار واحمنا من طوارق الليل والنهار يا قوي يا عزيز اللهم من قصد المسلمين بالقتل والترويع ورام الأفساد في بلادهم والتخريب في أوساطهم اللهم فاهتك ستره واكشف أمره واكف المسلمين شره إنك على كل شيء قدير اللهم اهد ضال المسلمين واصلح شبابهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احمي بلادنا وصائر بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك والنار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة